Annyeonghaseyo Yorobun. Kusoo dhawaada channelkayga. Please channelka hadii aad ku cusub tahay subscribe si aad ula socoto casharada kale aan soo gudbin doono. So, casharadii hore waxaan ku soo baranay sida Koreaanka loo qoro loona aqriyo, sida Hangul syllable blocks, Bachim iyo xeerarkiisa. So, maanta waxaan bilaabeynaa qayb aad u muhiim ah oo grammarka Koreaanka ka mid ah. Waana particles. Okay, particles waa maxay? Waa maxay horta particles? Marka hore aan fahamno particle maxay tahay. Particle-ku waa xaraf ama qayb yar oo lagu daro dhamaadka erayga si ay u sheegto shaqada uu eraygu ku leeyahay jumlada. Okay, af Soomaali ahaan waxaan u fahmi karnaa sida calaamadda naga caawinaysa inaan ogaano yaa waxa sameynaya, maxaa laga hadlayaa, maxaa ficilku ku dhacayaa. Koreaanka mararka qaar erayada iskooda uma sheegaan doorkooda, sidaas darteed particleska ayaa naga caawinaya fahamka jumlada. Tusaale, chonen 한국어를 공부해요. Haddii aan kala saarno, cho waa aniga, nun waxay muujinaysaa in aniga laga hadlayo. Okay, 한국어 habka Koreaanka, 를 waxay muujinaysaa waxa aan baranayo, 공부해요 waan bartaa. Okay, macnaha guud anigu waxaan bartaa afka Koreaanka. Okay, in bilowno marka particle-ka koowaad aan bilowno waa un iyo nun. Okay, particle-ka koowaad waa un iyo nun. Waxaa loo isticmaalaa marka aan rabno inaan sheegno waxa jumladu ku saabsan tahay ama waxa aad ka hadlayso. Tusaale, chonen 학생이에요. aan kala dhigno, cho waa aniga, nun marka laga hadlayo aniga. So marka mawduucu wuxuu ku hadlayaa adigoo ayuu ka hadlayaa. Okay, nun marka laga hadlayo aniga. Haksen arday iyuu ahay. Okay, macnaha guud anigu waxaan ahay arday. Halkan qofka aan ka hadlayno waa aniga. Sidaa darteeda waxaan isticmaalaynaa nun. Tusaale, 한국은 아름다워요. macnaheedu waa Korea waa qurux badan tahay. Waxaan ka hadlaynaa Korea, sidaas darteeda mawduuca Korea ayuu ka hadlayaa. So waxaa la raacinayaa un. So xeerarka marka labadan xeer ayuu leeyahay. Haddii ereygu ku dhamaado Bachim hore ayaa usoo sheegnay. Bachim waa xarafka hoosta la dhigo. Waxaa isticmaalaysaa particle-ka un si hadhowd Bachimka usoo boodo meeshan si binaha yaalo u imaado marka yacni ku dhawaaqaysi. Tusaale, 학생은 haddii ereygu ku dhamaado vowelna waxaad isticmaalaysaa nin. Tusaale, chonen. Okay, aan u gudubno particle-ka labaad waa iga. kan subject-ga ayaa lagu daraa. Subject macnihiisu waa ficil sameeye, qofka ficilka sameynayo. Object waxaa waaye ficilku waxa qofka ku dhacayo, yacni ficilku wuxuu ku dhacayo ficilka ku dhacayo. Subject waa ficil sameeye. Okay, subject particle-ka marka particle-kan subject-ga ayuu caawinaa. Particle-kan waa and ga. Waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo qofka ama shayga sameynaya ficilka, ama marka aan soo bandhigayno xog cusub. Tusaale, 친구가 와요. 친구 aan kala dhigno, 친구 saaxiib. Ga subject waa particle, subject particle waa waayo imaanayo, macnaha saaxiib ayaa imaanayo. Halkan waxa muhiimka ah waa qofka imaanaya. So marka ka la isticmaala. Tusaale kale, biga waayo, roob ayaa da'ayo. Okay, waxa da'ayo waa roobka. So xeerarka iga xeer ayuu leeyahay. Haddii ereygu leeyahay Bachim waa xarafka hoosta la dhigo ee ugu dambeeyo. Bachim iyaa la raacinaa si hadhowd Bachimka usoo boodo marka aad dhawaaqaysid uu meesha shibanaha yaalo oo soo galo. Cheki haddii uusan lahayno Bachim ka isticmaalay. Tusaale, 친구가. Okay, marka maxay ku kala duwan yihiin nun iga? Maxay ku kala duwan yihiin? Labadan ayaa beginnerka inta badan wareeriya.
aan tusaale qaadano. Okay, jonen hagsangiyeyo anigu waxaan ahay arday. waxaan ka hadlayo waa adiga, mawduuca adiga uu ku saaran yahay. Okay, jeega hagsangiyeyo aniga ayaa ah ardayga, wuxuu xoog saaraya kan qofka. jeega hagsangiyeyo so way kala duwan yihiin. midka mawduuca ayuu ka hadlaya, midkana mawduuca yani xoog wax ayuu saaraa. so marka nun waa waxa aad ka hadlayso, igana waa qofka ama shayga aad xoog saarayso. okay, particle-ka saddexaad ul iyo object particle waa objective ficilka ficil sameeya aan soo baranay particle-kiisa, ficilku waxa ku dhacay particle-kiisa la baranaa. particle-ka saddexaad waa il iyo waxaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo shayga ama qofka ficilku ku dhacayo. tusaale jonen nin hore soo barato waa subject particle, ficil sameeyaha ayuu caawiyaa. okay, jonen chegul ilkoyo ul markuu wuxuu caawinayaa objectiga ayuu caawinayaa. so marka luqada Koreanka jumlada marka la dhisayo waxaa loo qoraa subject object verb, halka Englishku marka la joogo loo qoro subject verb object. tusaale aniga waxaan cunayaa tufaax, aniga waa subject, cunayaa waa verb, waxaan cunayaa waa verb, tufaax waa object. so Koreanku ku duwayay aniga tufaax cunayaa way. okay, jonen chegul ilkoyo. okay, aan kala dhigno. jonen waa aniga so aniga chegul buuga waxaan akhrinayaa waa buuga, particle-kaas ul ayaa la raacinayaa, ilkoyo akhrinayaa macnaha guud waa aniga waxaan akhrinayaa buug. tusaale kale hanguugorul kumbuheyo waxaan bartaa Korean, waxa aan baranayo waa hangug, sidaa darteeda waxaan isticmaalayaa rul. xeer ayuu leeyahay. marka haddii ereygu leeyahay batim ul ayaa lagu daraa chegul, haddiise uusan lahayn batim rul ayaa lagu darayaa hangugorul. soo koobid maanta waxaan baranay 3 particle oo muhiim ah. nun waxaan ka hadlayno iga qofka ama shayga sameynaya ficilka ama la xoog saarayo, ul iyo rulna waa ficilka ku dhacayo. okay, haddii aan fahanto saddexdan waxaad bilaabaysaa inaad si sax ah u dhameysto u dhisto jumlad Korean ah. okay, aad ay u mahadsantihiin daawashadiina. please channelka subscribe deh si aad u daawata casharada kale ee soo socda. inta aynu ku kulmi doonaa cashirkan ee cashirka kale ku xigo. mac salaamo.